بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي قالق waxaan rajeynayaa meel walba joogtiin inaad fiican tihiin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad mar labaad mar saddexaad mar kunaadba idinka nabiga sallallahu alayhi salaatu wasalaam maanta waa maalin khamiis ah jimcaha soo dhow nabiga salliya nabiga lagu salliyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam noo soo gudbiyay diinta qayimka ah oo na kala tusay xaqa iyo baatilka sallallahu alayhi wasallam marka ku salliya ilaahay baan faray inaan ku sallinana horta khayr la idinsiiyo ma sha Allah tafaacilka ku tafaacisheen ama bad inta ka falceliseen inta comment ku soo qorteen inta aad su'aal ka keenteen inta aad qisadii la mid ah la wadaagteen inta aad ku ta'athurteen inta qof oo علشان ku dhiiraday ya groupka dhexdiisa xataa in ay iyagana qisooyinkooda soo gudbiyaan because waxa waaye dadka muslimiinta ah ama mu'miniinta waxa waaye waa walaalo labada gacmood inay is haystaan baa loo baahan yahay waa inay istaakuleeyaan waa inay isku taakuleeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in ay raadiyaan oo bartaan oo cibaadaystaan oo علشان waa inay istashjiicina fiidiyoyadeedana wax kale uga badan leeyahay waxa uga dan leeyahay in aan idinku tashjiiciyo idinka macmal cilmi badni والله أعلم ولا جاي بعد كمل هنا كعلم بدنه لكن ده بدن وإذا كمل أهنا هذا علم بدن تهين إلهي أقل علم عد ودنا يوسيا نوع ودنا يوسيا بمعنى علم جو حواي هرتوا نعم إله وبحيه إله سبحانه وتعالى بحيه مرة كقاركود علمي أذن بو كريانين أيوة لا جاي إله كسيو علم جانا مهمة ده حواي قفك أنتو فهمة كنت كعمل فلا علمي بالعمل فلا wax uu sheegay habeeraatay male tusaale ahaan videogan hadda aad daawanaysaa waxyaabo badan oo faa'iido leh baad ka aragtay ma sha Allah sida commentayaasha aad ka soo bixiseen videoga hore oo ku saabsan albaqar marka idin ka sheekeynay fawaa'ideeda iyo علشان nuurka anigu aan ka arkay shakhsiyan marka idin ka sheekeynay dad badan ba ma sha Allah dhaweyna dhacda anigaygan way ku dhacdaa marar badan intaas waxa laga yaabaa inaad qiso meel ka akhrisid inaad book ka akhrisid inaad sheeko qof xikmad intuu kaaga sheekeeyo aad ku ta'athurtid inaad quraanka akhrisid inaad aayad ma sha Allah ay kula noqoto inaad wixii oo dhan yes waa khayr waa barako ma sha Allah waa nimco laakiin wixii haday kugu socdaan aadan camaliyan aysan wuxuu soo bixin horumar ma gaaraysid adduun iyo aakhiro toona ya wixii marka waxa loo baahan yahay in action qofku la imaado dadaalkeeda loo baahan yahay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ka dhigo wax alle waxaan soo gudbinayo khaalisan mukhlisan lah alxamdulillaah marka waxaan ku faraxsanahay in ay ku dhiiradeen dad kale oo saas oo kale in ay ku dhiiradeen qisadooda wadaagaan qisooyin ma sha Allah cajiib ah oo dee الحمد لله رب العالمين مرك قاركود فرحدة نعمة إلهي السيئي أنت إلا أكتهي مرك قاركود واحد إسلها ميانو قلمة الحمد لله الحمد لله one of the ways yeah وإله سبحانه وتعالى نعمة يسأل وش شكر ديد وها كمل إن آد علشان هرتبل دان ستيد أو أركتيد أو درينتيد أو تكو قناعة هي ستيد كو لابو إن آد ku anfacday dadka nicmada uu Ilaahay ku siiyay wuxuu Ilaahay ku siiyay wuxuu doono ha ahaadee in aan ku anfacday dadka wax qof walba wax buu ku fiican yahay qof walba aniga waxaan ku fiicanahay adiga waxbaad ku fiican tahay walaasha waxbay ku fiican tahay ilmaha waxbuu ku fiican yahay kulligeen waxbaan ku fiicannahay waxaas aan ku fiicannahay marka haddii aanan ku faa'iideynin then waxa dhacaysa in dib u dhac uu nagu dhaco oo shakhsiyan uu dib u dhac nagu dhaco qof marar badan waxa keenta inaan horumar aanan sameyn waxa waaye waxa Ilaahay uu nasiiyay nimada Ilaahay nasiiyay oo hakranayno waxay doonta ahaan kartaa cilmi bay ahaan kartaa xoog bay ahaan kartaa lacag bay ahaan kartaa waxay doonta ahaan kartaa sadaqada weeyaan ya sadaqa jaari weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka ha naga dhigo kuwii hadalka markay maqlaan qaata oo ku amal falana oo intii saxda ana qaata marka hadda soo noqdo videoga maanta muhiimadii موضوعنا ما أنت دون أصلا نقطة يا وحواي محا كاني إن أنا فرجك لقى أقبليني محا كاني إن فرج اللي أنا فرجك يقول ده سيء محا كاني إن هدفك أنا جارين محا كاني دبودع محا يقول هذي وحواي لبا قضب أي رب أنا كهذا كو يقينتي وير يقينتي هي توكلك أو هل إسكوا وهل 2 in 1 وكوا قلبك كوا جانبك كوا رأينا كهذا جانب كلمات أو ربنا كهذا أنا حوايا وحاجرت
intaan istighfaarsanayno ama intaan wax ducaysanayno ama intaan cibaadaysanayno waxaa jirta wax aan dhinaca kalena ka wadno oon samaynayno oo haddaba naga hortaagan farajkii, naga hortaagan tawfiiqdii, naga hortaagan noloshii quruxda badneed oo fiicneed oo caafimaadka qabtay oo saliimka ahayd. waxaana waaye in aan dambi ku jirno. dambiyada kuwa ugu waaweynna waxaa ka mid ah horta waa bilaa yaqiin. yes waxaa jirta waxa la yidhahdaa hadda korna waan ka hadlay ذنوب كبائر أو وين ذنبي أتكشيد أو وين أو كبيرة أو هذانا ذنبي قلبي أو ذن أركين أذيك دتكون أيسن أركينين أو أن لدي لتابن كرين أن هنا سرادي كتكتي أو علشان صونك كتكتي أما أتكتكتي اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الصدقة أتكتكتي أن هين قلبي أو مركي قاركود أنا مركان مغلي يقول هيد mind blowing وحكمت يا waxaa ka mid ah haddaan hore usii qaadano dhadhaansada waxaa ka mid ah in aad ilaahay subxaana watacaala quus la imaatid, inaad quus la imaatid ya oo aad calashaan hopelessness iyo helplessness ay ku fariisiso. waa dambi kabiira ah ya taas waa koow. taas waa ilaahay subxaana watacaala subxaan allah waa waxyaaba dambi weyn ka weynaan kara miyaa jirta. ilaahay subxaana watacaala ayaa waxaa ka shakisan tahay waxaas inuu ku siin karo ama kuu samayn karo ama uu kaa caawin karo ama uu kuu dhammaystiri karo waad ka shakisan tahay. soo seed u sugaysaa marka inay wax ku hagaagaan waxa inuu kuu hagaago wuxuu doono ha ahaadee. ta kale oo ayadana ku jirta ayaa waxay tahay meesha dambi xaasidka ah. dambi kabiiro kale waa moogta xasad. hadduu qalbigaaga xaasidnimo ay ku jirto oo walaalkaada wanaaga ama horumarka ama allahuma salli wasallam baarik calaa sayidina maxamed ama wuxuu doono ahaadee aad ka xaasidaysid then ha ka yaabin xaasid laa yaflax baan soomaali ka maqli jiray. ha ka yaabin in aad horumartid. wax alla leeyahay cibaadadaada waxa waa muubiqaat waxay ka mid yihiin maxaan ku radaa camal wax alli waxaa samaynayso dhan bay burburinayaan baabi'inayaan habaan manfuura kasoo qaadeen. haddaad intaad qaadid ku indha adkaanaysid ama aadan iska sifeynaynin si aad adoo soo jeedo calashaan hub intaa ishubaysid because waxyaabaha qaarkood si fudud ayaa iskaga goyn kartaa. waxyaabaha qaarkoodna waa inaad dadaal badan kasoo martid saa iskaga goysid. marka haddaan markaa insha allahu tacaala videoga aan ku noqono qodobadeeni aan kala qaadqaadno. qodobka koowaad wuxuu ahaa ilaahi subxaana watacaala yaqiinta iyo tawakulka aad ku leedahay intuu la eg yahay. intee ayaad aaminsan tahay waxan ya aad ilaahay ka sugaysid inuu awoodo inuu kuu samaynayo. hadduu marka iimaankaagaas uu ku jiro labac oo aysan ahayn 100% hubaal aysan kaa ahayn dan laa shakka waxaas inaysan dhacaynin ama inay daahayaan ilaad ka aaminaysid ya inuu ilaahi subxaana watacaala waxaas samayn karo inaad aaminaysid because ilaahay awoodiisii laa ilaaha ila allah ayaa shakigaaga jira. laa macbuuda bixaqin ila allah. ilaahi subxaana watacaala iyo calashaan jiritaankiisa iyo sifooyinkiisa waa inaad isla aamintid sooma. so ma aaminsan tahay inuu ilaahay qaadiru calaa kulli shay uu yahay. ilaahay kun fayakuun inuu ma aaminsan tahay. iimaankaas intee buu la egyahay marka hadduu shaki kaaga jiro oo aad aaminsan tahay inaa adiga awoodaada because waan soo wada ahayn ilaa man raxima rabba. maskaxdan yar uu ilaahay ku siiyey, cilmigan yar uu ilaahay ku siiyey, shahaadadan yar uu ilaahay ku siiyey, connectionskan yar uu ilaahay ku siiyey baad ku saaraysaa more maxaa heeday aad calashaan isku hadlaynaysaa more than ilaahay waxaasoo dhan sameynaa isku hadlaysid. maxaa ku caddaynayo? waxaa ku caddaynayo waxaad ku mashquulsan tahay ya maalin iyo habeen asbaabti inaad shaqaysid, inaad orodid, yes ilaahay subxaana watacaala waa caadil uu kugu abaalmarinaya shaqadaadaasi waxaagaas. laakiinse haddii aad rabtid wax mucayan ah inuu ilaahay kuu suurtageliya haddana saasay tahay aadan u celinaynin ya musabibki asbaabka aadan u celinaynin dan waxaas ma hagaagayaan. anaana kaaga markhaati ah taas ya. so waxaa lagaa rabaa yes xarakadii la imow, dadaalkii la imow, wixii oo dhan la imow, laakiin kow waxaa la imaataa
مسبب الأسباب إنه كو سمينايو هدي waxaan dan iigu jirto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogyahay in ay ani danteedi iigu jirto in ay ii dhacayso la maxal shaki igama jiro waa inaad dhihi kartid wuxuu doonaa hada waxaas bayna السماء والأرض bay noqon kartaa jaamacad aad raadinaysa noqon kartaa ilmo aad jaamacad raadinaysa noqon kartaa meel aad ka gurtay noqon kartaa maxaan ku radaa wax isbedel baartaan noloshaada inaad ku samayso horumar baartaan inaad ku samayso business baartaan inaad samaysatid ya wuxuu ahaan karaa wax basiid ah ahaan karaa caafimaadkaaga rabtaa inaad wax ka badashid ya oo aad مثلا dhakhtar iyo qalliin iyo maxaa laga yaabaa wax nabar ama xanuun muddo islahayd iska qashid oo aad inta dhakhtar jirta caalamka aad u raadinaysa oo mareysay haddana aad ilowsaneed Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma dhacaysa marka waxa laga yaabaa in aad mashriq iyo maghrib iyo meelaha ugu cilmiyada ugu sarsareeyay intaad raadisid ya iyo dhaqaatiirta ugu waaweyn iyo culimada ugu sarsareysan inta ka raadisid cilmigooda asku dayday inaad dawadaas raadisid ma ku dhacayso haddii aadan marka hore aaminsanay Ilaahay hadduu igu talagalay inuu aan meeshaas ka soo helo waan ka soo heli hadduu igu talagalay markaas inuu dhakhtar hebelkaas iga soo qoro waan ka soo heli shaka kuma jiro waan ka heli hadaa aaminsanay oo aad koos dhahaysid okay dhakhtar hebel baa ugu fiican waxaas waan ka soo helaya aadan laakiin aysan ka ahayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadduu ii qadaro dhakhtar hebel inuu iga soo qalo meeshaas oo igu fiicnaan maxaa dhacaysa marka yaqiintaas hadaa haysatid aadan hadaa taxta qof aadan awoodin marka kale adigoo awooda oo lacagteeda haysta oo connectionskeeda haysta baa laga yaabaa in aad adduunyada oo dhan soo wada martid ay kuu suurtageli weydo ya in aad waxyaabaha ugu Ilaahay uu kuu suurtag calashaan uu kaaga dhigay accessible bay kuu yihiin waxyaabo badan iyo calashaan oo opportunities badan baa farahaaga hortooda yaala haddana saasay tahay Ilaahay gacmaha ayuu isku kaa saari karaa wayna dhacday anigaana markhaati idinka haddana laakiin aad aamintid Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahayow I know waxaad iigu talagasho ugu fiican inay ii dhacayaan because ballanqaadyadaadan aaminsanahay wixii aad ii dirtay haddaan sameeyo ya inaadan idhigaynin because adigoona waxaad ii dirtay aanan samaynin baabad nicmo igu midigii bidix iyo hore gadaal iga dhigtay so haddaad markaa waxaa ii dirtay aan sameeyo I know haddaan ku mashquulo yaa rabbi waan ogahay haddaan ku mashquulo waxaad ii dirtay in aadan wax alla leeyahay oo dhibaato ah isoo marinayna waan ogahay rabbi haddaad aaminsan tahay dan laa shaki la'aan weeyaan inaa waxa ugu fiican oo walba aa helaysid caafimaadka ugu fiican deganaanshaha ugu fiican xikmadda ugu fiican ya waxaa dhacaysa nabarkaas aad u raadinaysa inaad qashid inaadan dhakhtar ugu baahaninbaba adigoo iska daa waxaa laga yaabaa marka qaarkood dhakhtarka ugu basiidsan oo tuuladaada joogo inuu kuu kala dhameeyo ama waxaa marka laga yaabaa oo kasii fiican oo dhacday ya adigoo dhakhtar aadin goon inuu noqdo meesha qaliinka ugu baahnayd intaasoo sano waana xaqiiqa so yaqiintaadii iyo tawakkalkaaga xagguu saaran yahay mase og tahay waxaa lagaa rabo the steps lagaa rabo inaad qaadid ya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad shakuur u tahay cibaadiya shakuur inaad ka mid noqotid Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kuu diray samee wax alla leeyahay uu kaa reebayna ka reebtoono qodobkeena labaad weeyaan insha Allah ta'ala dambiga aan walaaqanayno oo aan wadno on ku dhag adagna on ku madax adagna hadaanan iska daynin dee waxaa laa shakka ah in aan ciqaabteedina continuously u helayno no matter halkanna waan kaga shubayna halkanna waan kasii daadinayna halkanna waan kaga shubayna halkanna waan kasii daadinayna bimacnaa wixii wanaagsanaa waad samaynaysaa laakiin maxaa ku baabi'inaysaa waxaa ku baabi'inaysaa dambiyo weliba haddana waaweyn waxaa ku baabi'inaysaa in aad uu qalbigaaga ay kusoo dhacdo in aad مثلا qof hebel ka fiican tahay in aad ka cilmi badan tahay in aad ka caqli badan tahay in aad ka uga ilaah dhowdahay la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh ilaahi qulubta ilaahi miyaad war u haysaa ya qalbiga qofka kale miyaad war u haysaa qofkan waxa soo gashtaa saasuu yahay meeshaasuu joogaa saasuu u dhaqmaa
aniga ma ihi saas. iska daa inaad dhahdide ya hadday kugu soo dhacdo ciqaabteeda ayaa mutaysan kartaa, wayna dhacday. markaa leedahay iisoo qortid aniga, ama waa isweydiisid adiga, ama aad kala weydiisid maxaa aniga wax walba waan sameeyey wax walba waan sameeyey, intaasoo jeer baan istikfaarsaday, intaasoo jeer baan maxay ahayd qof ma dulmo, saas ma ihi ya. isxisaabi, runtii isxisaabi, isku noqo. wallaahi waxaad ogaan doontaa in aad khaladaadkaaga iyo dembigaaga iyo waxa aad samaysidna intaas ay la egyihiin, wanaaga aad samaysid intaas ay la egyihiin ya. dad baa waxay isweydiiyaan maxaa oo dhaheenbaba maxaa anigu intaas istakfurlaysanaya. dembi mawcid baan dilay baa laga hayaa maamo ya, gabar groupka ku jirta ila wadaagtay, maamo lagula taliyay in ay istikfaarsato. so macid baan dilay, ma inaad cid dishid baa saad u istikfaarsatid? muxuu loogu sunneeyey in aan markaas assalaamu calaykum aan dhahno, inaan astaqfirullah dhahno? because salaadii aan la imaanay hadeertaan complete inay ahayd iyo in kale yaa og. because waxaa la ogyahay in aan no matter how much aan isku dayno inaanan intaas ka gudi karin ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiisa, iyo wuxuu noo diray siduu noogu diray inaan u sugno na inaysan si u dhow xataa aanan u samayn karin, laakiin aan rajaynayno. baan lagu yiri istikfaarsada, xajka markaa dhamaysiin istikfaarsada, salaada markaa dhamaysiin istikfaarsada, astaghfirullahi alcadiim wa atuubu ilayh. marka dambigana iska ilaali oo ka fogow insha allahu tacaala. istikfaarta badan iyo suuratul baqara inaa akhrisid, combinationkooda waxay ku faa'iideynayaan inaa kow dambiyadii boqolaalka milyan oo dambi oo kuugu jira buugaaga inuu ka tirtirmo oo goomo uu u noqdo ya. labo, biidni illaahi tacaala dambiyo hor leh inaadan gelin. suuratul baqara waxyaabaha fadligeeda ilaahay siiyey waxay ka mid tahay inaad dambiyo hor leh gelin oo dambiyada aad nacdid ya, ayay kaa caawinaysaa biidni illaahi kariim. waxaa kale oo jirta in aad adiga dee rajo fiican la imaatid. ilaahay subxaana watacaala haddaad qalbi saliim ah iyo rajo fiican iyo xusna dhan billaah, waxaa laga wadaa inaad ilaahay filasho fiican haddaad ka haysanin, then dee waxaa calashaan tawxiidkaaga ayaa khalkhal ku jira. ilaahay baana ka magangelaynaa insha allah tacaala. waxaan rajaynayaa in aan galmad iyo laba uun uga jawaabay maxay rajadeydu igu dhici laadahay, ama muxuu farajku usoo daahay ya. waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay sababahaas aan soo xusnay, inaan kow ya yaqiintaada iyo ilaahay subxaana watacaala tawakulka heerkaaga tawakulkaaga uu daciif yahay. labo, dambiyada waaweyn which yaqiintaada yar iyo qunuudka ka ilaahay ka quusta ka qabtid ay sabab weyn u noqon karto. waa kow. labo, in aad dambiyo ku jirtid hadeertaan waaweyn aad samaynaysid, sida inaa xasad, in aad kelmad dhahdid, qof ku dhahdid, in aad qof quursatid, isla weynaatid, in aad dambiyadaas way waaweyn yihiin. waana ku habeenaya maalimidigii bidixii baan u dhacna inaan xukmino dadka oon dhahno qof hebel waa saas, ani saasaan ahay. isku maleysid inaad ka fiican tahay. fanacuudu billaah ya. inaa asbaabta aamintid, musabidkina aad ilowdid. ilaah baan ka magangalnay. intaas maanta idinka tegay insha allah tacaala. intaa mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu.